waxaan kala ku tusaaleynayaa Malaysia aan tagay 2016 magaalo Kelintaan la yiraahdo ayaan muxaadaro ka jeediyay kamarada hadda nin dhalinyaro ah baa inoo haya waxa kamarada hayay oday waayeen oo aan 70 ku dhawiyay baa iga duubayay aad baan u qariibsaday ninka waayeelkii kamarada haya markii muxaadarada dhamaatay baanu hudalna loo cashageeyay ilaahay ma hadii ninkii baabay soo hor fadhiistay laftiisi wax duubayay waxa ay ninkan qisadiisu maxay ahayd aad baan u leeyahay annaga dhalinyaro wax duubay odayga wax duubaya muxuu waxay yiraahdeen magaaladan aanu joogno waa dhakhtarka ugu caansan ee loogu jecel yahay calooshaan ku takhasus waa consult istishaari weeye PhD ayuu jarmalka ka soo qaatay 25 sano ayuu waxa weeye heerka iyo mustawaha maray wuxuu leeyahay dhakhtar u gaar ah buu leeyahay lama helo balamiis wuxuu yiri diinta alla waxaan ku darsanayaa kamarad baan ku darsanayaa iyo qalabkii adeetika loogu sameyn lahaa anaana sameynaya anaana duubaya saacadii waxoogaa buu hor fadhiyo duubay oo ku soo talagalay 7kii waxa cagaynaya waa dhakhtar la yaqaano adduunyo fiican haysta magac haysta lacag badan loogu galo kamaradaas uu siistaa kelmad kasto la jeedinayo waa duubaya wuxuu igu yiri wadaadka u sheega aad baan u mashquulsanahay waa dhakhtar weyn 3 cisho ka bacdi baan adeeti ku sameynaya sheekhu haduu sugayo waan u diyaarinaya waan u keenaya muxaadariis waan u keenay ma waxa ku iri insha Allah taala idinku wala iga tarjumayay idinka waxa way iska sii wadanaya bari dambe dhowr sano ka bacdi baan ku arkay YouTube iyadoo waxa way la soo galiyo iyagu ay soo galiyeen oo kumanaan Malaysian ay daawadeen anu kalmad yar baan jeedinayay sheekh Malaysianana afkii malay uu bedelay wahan magac iyo sharaf iyo maamuus ayuu leeyahay diinta alla wuxuu kaga qayb qaatay kamarad buu kaga qayb qaatay wahan